بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أخواتي في العقيدة، الموضوع isku dayi doonno haddii alla idmo inaan wax ka nidhaahna waa almunaafiquun wa khataruhum cala alumma. nifaaqa iyo munaafiqiinta marka aan ka warramayno ugu horeyn waxaan uga warramaynaa si aan inagu uga dheeraanno, si aan nafteenna sifaadka iyo calaamaadka iyo astaamaha iyo tilmaamaha iyo sumadda lagu yaqaano dadka si loo nisbeeyey nifaaqa aan uga dheeraanno, si aan u helo xasaasiyaddii ama dareenkii ay lahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa ka imaam albukhaari fii saxiixi baab buu ku soo aroorinayaa baab khawfu lmu'min min an yaxbita camaluhu wahuwa laa yashcur. dabeetana wuxuu ku bilaabayaa baabkaasi ibnu abi mulayka taabicigii la odhan jiray war uu ka soo naqlinayo. ibnu abi mulayka oo taabici macruufa ah, raggii saxaabada badanna soo gaadhaya, wuxuu leeyahay adraktu 30 min asxaabi الnabiy sala allahu calayh waalih wasalam kulluhum yakhaafu الnifaaqa calaa nafsih maa minhum axadu yaquul inahu calaa iimaani jibriila wa mikaa'il. taabicigaasi ibnu abi mulayka la yidhaahda wuxuu leeyahy waxaan soo gaadhay 30 ka mida saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhammaantood nafahooda nifaaq uga baqaya. waa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo iyagu lafahooda uga cabsanaya nifaaqa. mid odhan jiray ma jira buu leeyahay iimaanka jibriil iyo mikaa'il baan leeyahay aniga waxba iga xumaan maayaan, cid rumaysnaydi ma jirto. saxaabadu siday nifaaqa uga baqayeen waxaa idinkaga filan axaadiistii soo aroortay. xadiidkii xandala ee saxiixa ku yaalay, ama xadiidka anas ibnu malik warinayo, ama xadiidka abu hurayra warinaya, labadaba uu tasxiixinaya sheekh alalbani fii silsilati. yacni bacd alalfaad haddaan soo qaadano, maalan anas ibnu malik ku warinayo wuxuu leeyahy saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ku soo subax u timi nebiga gelin hore, dabeetana waxay idhahdeen halaknaa warabbi lkacba, ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsanay, iyagoo dhaaranaya. nebigu wuxuu ku yidhi wamaa daak, maxaa keenay ina halaagsantaan, dhibtu maxay tahay? qaaluu annifaaq annifaaq bay ku yidhahdeen, ilaahay rasuulkiisiiyo munaafiqnimaa jirta. nifaaqu marna waa nifaaq qalbiga dega oo diin la'aanah oo gaalnimo ah oo aynu ka warrami doonno, marna waa nifaaq camaliya oo qofka waxa qalbigiisa ku jira iyo acmaashiisu ay in badan iswaafiq weydo. saxaabada waxay ka shakisanaayeen markaasi inay saadiqiin dhaban noqon kari waayaan, armay taasi dhacdaa. dabeetana waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsanay. maxaa jira markuu yidhina waxay dhahdeen nifaaq. qaala alastum tashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah, oo miyaydan shahaadada qirayn buu nebigu yidhi inuu alle subxaana wa tacaala keligii ka xaq lagu caabudo yahay, anna aan ilaahay rasuulkiisii ahay? qaaluu bala, waa qarsannay bay idhahdeen midhkaas. markaasuu nebigu wuxuu yidhi laysa daaka nifaaq, haddaba kanaa ka cabanaysaan man haddaa caqiidadaasi sugan ku sugantihiin munaafaqnimo maaha. wuxuu leeyahay anas ibnu maalik mar kale haddana u yimaadeen su-aashii bay sidii ugu celiyeen, halaknaa warabbi lkacba. nebiguna jawaabtii buu ku celiyey, war miyaydan ashahaadanin? may waa shahaadada waa qarnaa bay idhaahdeen, warkaasi nifaaq maaha. mar saddexaad bay haddana nebiga u yimaadeen buu leeyahay anas ibnu malik, iyagoo nafsi lmas'ala u tilmaamaya. nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamaya inaanay sidani nifaaqnimo ahayn. dabeetana markii dambe waxay idhahdeen yaa rasuula allah, innaa idaa kunnaa cindak kunnaa calaa xaal, ilaahay rasuulkiisiiyo markaannu adiga kula joogno xaalad baannu ku sugannay. waidaa kharajnaa min cindik hammatna dunya waahluuna, markaannu se adiga kaa tagna bay leeyihiin
waxaana mashquuliya adduunka iyo reeraha iyo waxan baanu ku mashquullaa وكو النبي مركا قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على مثل الحال الذي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرق المدينة يعني واحد دريميسا إن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى فهد وغش كسين مركا النفاق إذا قفك لنا آمن مركا كماها حنو باهنا inaynu si fiican marka u faahmno sifaadka nifaaqka iyo calaamaadka lagu garto si aynu uga dheeraano si aynu walaaladeenna kale ugaga digno si aynu munaafiqa dhabta u arki karno si aynu barano siduu nabi maxamed ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam kuwa sifaadka kani ay ku cadaadaan ibn abi mulayka saxaabadu soo gaadhay uu leeyahay 30 baan soo gaadhay saxaabadii nabiga oo nifaaq ka baqaya ديكو وحكا ورين جري وحا كميدا عائشة أسماء بنت أبي بكر أم سلمة عباد الله دي أفرتاهي أبو هريرة عقبة بن الحارث المسور بن مخرمة سحبتها وين أجل هذا أبا كميدا كو سو غاري وحكا وري كو دا أهانا ما وقت أهان لن نولانا دي علي سعد بن أبي وقاص يرقوا وين وبدانو كلا كميدا سيدو حافظ كو صون نقلين أيو waxaan markaa uga jeedinaa mas'alada tan marka aan ka warramayo dadku inta badan markay wacdi dhageystaan cid bay ku asteeyaan oo iskaga sii calaamadsadaan marka koowaad cid aynu calaamadinaynaa inay noqoto lafaheena inaynu badbaadino oo ka badbaadino waxa aan sheegi doono ee quraanku uu tilmaamayo nifaaqa asliyan waxyigu markuu soo degay ama dadku amaam alwahyi saddex qaybood bay qayb badheedha oo ka badheedha inay ilaahay ka gaaloobaan subxaanahu wa tacaala shareecadiisa iyo diintiisa toona aan rabin gaalo la yidhaahdo oo mowqif la garanayo sariixa oo cad taagan qayb kale oo iyana ka badheedha oo rumaysan ilaahay iyo rasuulkiisaba sirran wa baatinan wa daahiran si walba u rumaysan oo iyana ka badheedha inay qaateen waxyigii xagga alle uga yimi subxaanahu wa tacaala iyo qayb saddexaad oo iyagu labada qolaba u sheegtay inay ka tirsan yihiin hadday kuwan la joogaanna la maca hadday kuwan la joogaanna la maca aan lahayn jur'ada ama awoodda ah inay mowqif cad istaagaan oo waxa ay rumaysan yihiin ay ka badheedhaan ama gaalnimo ha noqoto ama islaamnimo ha noqotee qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa kooxdani bini aadamka kooxda ugu shar badan inay tahay gaalka munaafiqa ka xun waayo aakhira isaga ka boos hooseeya ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira naarta waxaa loo kala cadaab kululiyay sida loo kala hooseeyo ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa inay galayaan fi darki alasfal halka ugu hoosaysa naarta inay munaafiqiintu ku jiraan idan munaafiqiintu waa duul gaalnimada ka hooseeya laakiin bulsho ahaan ka tirsan mujtamaca muslimka idan bulshada muslimka qayb ka tirsan oo gaalka ka liidataa jirta qur-aankana astaynayo sifaynaya waa duulkaasi munaafiqiinta la yidhaahdo nifaaqu أصل الكلمة علماء اللغة غار كم يدو حيث الماما وحكيمي من نفقاء اليربوع نفقاء اليربوع وحل قلت الماما بهاشان ولد الله يده هذا قد كي قضته ولده وحيوان ير وبناك اسكغنول قد بي قضى دم بي أف وغيشا دنك كالي دهار يرمى عيد يربي كغتكتا dabeetana wala hadaad erido godka xagga ka galo aad tiraahdo daba soco xagga kalun bay madaxa ku dhufanaysaa way ka boodaysaa xagga kale oo ka bixi karaysaa aslul kalima waxay ka timi baa la yidhi min nafaqaa'il yarbuuc waa kuwan dee nafaqa lagu tilmaamo tunaliskan ama godadkan la maro kaanama uu yahay munaafiqu kaa xaggan intuu ka galo xagga kale ka baxa kooxdaana kama tirsana kooxdaana kama tirsana qolana daahirku uga tirsan yahay qolana baatinku uga tirsan yahay وولدا قدك انت حاجه شاحه marka la yiraahdo qabtana xagga kale ka boodaysa idan qaybta tani waa qayb abuurantay ama se samaysantay ahdigii Madiina
bale waa dad nebi moxamed la noola calayhi salaatu wasalaam bale waa dad majliska nebi moxamed soo fadhiisanayay bale waa dad intay nebiga u yimaadaan lahaa waxaanu qiraynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay haddana warkaasi aanu xaqiiqo ahayn ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya wuxuu leeyahy idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llah wallahu yaclamu innaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ittakhaduu aymaanahum junna fasaduu can sabiili illah ilaahay wuxuu sheegaya subxaana wa tacala oo inooga warramaya nabi maxamed baa alla leeyahay markay munaafiqiintu kuu yimaadaan waxay leeyahay nashhad waxaanu ka markhaati kacaynaa maxay ka markhaati kacayaan innaka larasuulullah inna iyo laam iyo adawaatu tawkiidka intay urursadeen ayay waxay leeyihin waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay nebi maxamed bay la khitaabayaan oo la hadlayaan iyagoo la joogana waxay sheegayaan inay rumaysan yihiin nebi moxamed inuu ilaahay rasuulkiisii yahay ilaahay baa subxaana wa tacaala warkooda beeninaya laakiin intaan warkooda la beenin waxaa la tilmaamayaa hadalkay horta sheegeen inuu isagu dhabiyey laakiin iyaga odhaahdoodu inay beentay wallahu yaclamu innaka larasuulu baa ilahay yidhi masaladaas iyada muran kuma jiro oo ilaahay waa ogaya subxaana wa tacaala inaad ilaahay rasuulkiisii tahay laakiin maxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu leeyahy wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun waxaa kaloo ilaahay ka markhaati kacaya munaafiqiintu inay beenaala yihiin baa la yidhi subxaana wa tacaala idan bulshada aan ka warramaynaa ma aha bulsho daba joogtay waa bulsho nebi moxamed la noolayd waa bulsho majliska nebi moxamed fadhiday waa dad nebiga calayhi salaatu wasalaam ku leh waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad tahay ilaahay rasuulkiisii sidaa awgeed waa qayb ka tirsan mujtamaca muslimiinta ah qaybta tani cahdigii maka may jirin waayo muslimiintii maka joogtay xaaladdii ay ku noolaayeen may ahayn dad itaal leh oo ama wax laga rajeeyo ama laga cabsoodo ama dadka muslimiinta abaaba dhib ku jiray laakiin wakhtigii madiina gaar ahaan badar gadaasheed ayuu nifaaqu aad u soo caanbaxay markay guushii muslimiintu muuqatay iyo dadku inay xoog yihiin ayuu nifaaqu soo caanbaxay iyagoo isugu jira qaar hunguri wado qaar magac iyo maamuus doonaya qaar raba islaamka inay lugooyaan nooc walba isugu jira munaafiqiinta qur-aanku uu ka warramay caanka waxaa taqaan inuu ka mid ahaa nin la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ka mida labadii nin da ahaanba waxaa la yidhaahdaa ansaar dagaaladii dhex maray nin weynba kamuu tegin baa la yidhaahdaa wax odayabay culamaa'i taariikh qaar ka midii sheegaan laba nin baa ansaarba waayeelba ku hadhay labada nin waa xandala ghasiil ilmalaa'ika ninka la baxay abihi abi caamir alfaasiq abi caamir alraahib ninka la odhan jiray midna waa cabdillaahi ibnu ubay waayeel maka labadaasaa ku hadha la yidhi madiina waayeel labadaasaa ku hadhay ragga inta kale dhallinyaray ahaydee madiina jooga dagaaladii baa waayeelku ku madhay markii la heshiiyeyna waxaa la yidhi aan waayeelkeenna madax ka dhiganoo cabdilaaha la gartay in saltanad iyo maamuus iyo magac loo yeelo iyadoo cabdilaahi taajkiisii suldaannimo la tolayana nebi maxamed baa soo galay calayhi salaatu wasalaam madiina oo dadkii qiyaade iyo diin cusub bay raaceen cabdillaahi ibnu ubay nifaaqiisu nifaaq siyaasiyuu ka bilaabmay bay dhahaan wuxuu u arkay kursigii madaxnimada in nebi maxamed ka qaaday sidaa awgeed intii hore wuu isgiijinayey markii dambe uu arkay in islaamkii guulaystay xoogaystay badar dabadeedna isna daahirka qolada islaamka ka sheegatay ayuu ka mid ahaa waxa aan ka warramayaa marka oo aan jeclahay nifaaqa marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayo qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramay ilaahay subxaana wa tacaala waa awoodayay nebi moxamed in dadka inta munaafiqiinta inta waxyi loogu sheego la yidhaahdo hebel waa munaafiq hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiqa iska ilaali waxay culammadu yidhaahdaan wakhti dambe ayaa waxyigu nebiga ku soo degay midhadh ka mida munaafiqiinta loo sheegay isna uu xudayfa oo qura u sii sheegay xudayfa ibnulyamaan saxaabigii la odhan jiray
laakiin baa la yidhaahdaa intii ugu badnayd munaafiqnimada ilaahay subxaana wa tacaala qur'aan buu ku asteeyey iyo sifaat culamaa'i tarbiya rag ka mida waxay tilmaamayaan mas'aladaasi waxaa ku jira bay leeyihiin in jiilka dambe muslimiintu waxay ku dhaqmaan ay helaan oo haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uun inta munaafiqiinta magacyadooda loo sheego innagu maanta munaafiqiinta saynuu la dhaqmi lahay see lagu garan lahaa innaga ila waxyina inoo iman maayo magacyana ma haynee see lagu garanayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu asteeyey si dadku u wada garto qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay munaafiqiin kaga warramaya suurat lbaqara in badanoo ka mid a ilaahay kaga warramaya suuratu tawba suurat lmunaafiqiin axdaad tiro badan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii dhacdaa ilaahay kaga warramaya ghaswatu uxud ghaswat alaxzaab ghaswatu bani nadiir bani lmustalaq xaadiat lif ghaswati tabuuk qur-aanka ka warramaya ghasawaadkaasoo dhammi munaafiqiin buu tilmaamaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayaa munaafiqiintu khatartooda waa nimankii awooday nebi moxamed ciidan uu wato gebigiisuba 1,000 qofa inay 3 dalooloo dalool la kaci karaan yacni taaiirkay bulshada ku lahaayeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ghaswatu uxud 1,000 nin buu la soo dagaal tegey iyadoo uu nebi yahay oo rasuul yahay oo qaa'id yahay oo sayidulbashar uu yahay oo rajul xakiima caqli badan fatana bulshadiisa yaqaana garaad badan isla markaa risaalad iyo waxyinimo wata ayay waxay awoodeen 300 oo ciidankiisa ka mid inay cidlo la kacaan nimaan nebi moxamed ahayn markaa maxay ku samayn karaan hadday awoodaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii inuu 300 kaxayn karo waxaad garan kartaa khatarta dadkani ay leeyihiin inta ay gaadhi karto amase inta ay leekaan karto inay dhan halaagi karto sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya qur-aan tiro badan maalan fi suurati albaqara markii mu'miniinta laga warramayay 4 aayadood baa ilaahay sifaatka mu'miniintaba ku tilmaamay alif laam miim marka laga tago 4 aayadood ee ku xiga ayaa ilaahay mu'miniin ku sifeeyey gaal markii laga warramayay 2 aayadood baa ilaahay ku sifeeyey 2 aayadood oo kaliya waayo labadan kooxoodba bay culammadu yidhaahdaan waa dad la garan karo astaantoodu ay caddahay waa dad aan midabaynin waa gaal gaalnimadiisa la garanayo muslimnimadiisa ama mu'minnimadiisa la garanayo ama munaafiqiintu waa dad midabeeya subaxba dhinac u eg galabba dhan jooga waa qof aanad astayntiisa iyo tilmaamtiisa si toosan mar qura wada garan karin sida daraaddeed baa 13 aayadood ilaahay uu ku asteeyey 20 aayadood ugu horeeya marka laga warramayo alif laam miim marka laga tago 19 kale 13 aayadood ka mida baa lagu asteeyay ama se lagu calaamadiyey munaafiqiin taasi waxay tilmaamaysaa bay culimadu yiraahdaan sida uu munaafiqaya astayntiisu khatar u tahay ee loo dareemi karo sida uu googooyn badan yahay marba meel uu taagan yahay markii kooxahoo dhan la asteeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkoo dhan u yeedhay oo la yidhi yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum wardadow dhammaantiin isku darsamo war ilaahay ka baqa la yidhi ilaahay caabuda subxaana wa tacaala ucbudu rabbakum waxaan uga soconnaa maxaa intaasoo aayadood oo qur'aana loogu tilmaamay waxa loogu tilmaamay baynu leenahay in innaga wax layna baro idan waxaynu u baahannahay markaynu munaafiqiin iyo khatartooda ka warramayno intaanan khatartooda sharxin iyo sida loola dhaqmayo inaan in yar eegno munaafiqa iyo qur-aanku siduu u asteeyey waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya am xasiba aladiina fii quluubihim marad an lan yukhrija allahu adqaanahum walow nashaau la araynaakahum falacraftahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni alqowl wallahu yaclamu acmaalakum ilaahay wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u tilmaamayaa duulka gaaleed haddaanu rabno waaba ku tusi lahayn baa ilahay leeyay kuwa munaafiqiinta ah laakiin waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta wuxuu ku garanayaa inay tahay warkooda iyo ficilkooda iyo aqwaashooda iyo qaabkay u dhaqmayaan marka waxaan rabaa sifaadkooda qaybo ka mida midhadh inaan tilmaamo
waxaanu tilmaamayaa midhadhka sifaadka ka mid ah nin waliba inuu naftiisa eego oo hadduu waxa kani wax kaga sugan yahay inuu iska zuuliyo uu ka fogaado ka dheeraado walaalkaaga kale aad uga digto ilaahi subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markuu sifeynaya sifaadkay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah waxay caan ku yihiin inay jecel yihiin in muslimku jabo islaamkana laga guulaysto waxay caan ku yihiin baa qur-aanku tilmaamaya inay farxaan markii ay arkaan goob muslim ku jabay guusha gaaleed iyo ay ku raynrayn bilaabaan markay arkaan haddaad sifadaa iska dareento aad aragto meel muslim ku jabay adigoo faraxsan waa sifa min sifaati almunaafiqiin ilaahi baa subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy in tusibka xasanatun tasu'hum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون بإله إليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هدي وناجد هلبا إله إليه سبحانه وتعالى ومسلم كقول استدتك كنحا وإياك إله إليه تسؤهم haddii xagga allaba masiiba idinka haleeshana waxay odhanayaan waa arkaynaa waxaasoo annagu waa ka tabaabushaysanna waxay jeesanayaan baa ilaahay leeyahay iyagoo weliba faraxsan idan muslim jabkii gaal baa ku farxa muslim jabkii munaafiq baa ku farxa haddaad markaa aragto dad islaam u nisbo sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey rayraynayo farxaya oo u arka inaan wax weynaba dhicin qolaama mutatarrifiina macaynkan hadama saatan ahayd ay yihiin kuwa jabay waa calaama min calaamaati almunaafiqiin ilaahay baana ku asteeyey idan haddaad astaantaa isku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay aad u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso waxaa qur-aanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka warramayay alle subxaanahu wa tacaala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadowga muslimka walaalnimana u dareemaya ninka gaaleed colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah ilaahi subxaanahu wa tacaala isagoo nebi maxamed tilmaamaya wuxuu leeyahy alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم إلهي وحط المامة سبحانه وتعالى ألم ترى ماذا كن بإلهي إليه ما وقتها إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم بإلهي كوا منافقين تي وحي كليهين ولا لدود بإلهي يا أولا له منافق يا ولا الله قدقي رب العالمين باقولا ولا لغدغي مؤمنين توحل إنما المؤمنون إخوة أما منافقين توحل يا الله ولا لا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وحيكون يوم ولا لذو أهل كتاب كأبا إلهي إذن وحي الرميسين مبادئ دي أركتدا أي وضان أهل كتاب كي أنت قال إلا صعطة وأستين إلهي سبحانه وتعالى وكو أستيي إلهي وحلي يقول هذا وحي كولي إن هدا لين خرجتم لنا إذن كانوا معي إنني سوى البيضين كانوا دين لصعنا وحي إلهي قرآن كوكت الماما يا منافقة علامات كاللغوية قانين كم تهي dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan weligu waa cidaad u nusrayso u gargaarto walaalatay jeceshay inuu guulaysto aad jeceshahay kuwa muuminiinta aanay necab yihiin ilaahay baa wuxuu qur-aan ku leeyahay bashiri lmunaafiqiin bianna lahum cadaaban aliima waxaad ugu bushaaraysaa baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab wax laxwiya oo waa kuwa kuwani الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلهي مؤمن كوحكو منافقة سيوحكو أستي الذين يتخذون الكافرين أولياء وكوا قال دولي كدغنا يبا إلهي من دون المؤمنين ومحيو كدغنا أيبتغون عندهم العزة با إلهي
maguul iyo sharafti iyo magac iyo rayn bay ka raadinayaan baa la yidhi subxaanahu wa tacaala. idan waa calaamad kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayo qur-aanka markuu astaynayay nimankii munaafiqiinta ahaa. calaamaadka alla ku tilmaamay qur-aanku uu sheegayo waxaa ka mid ah cayda dadka muslimiinta ah, asmaa xunxun iyo wax la mida loo bixiyo. waa ka ilaahay leh subxaanahu wa tacaala yaquuluuna lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal. man iladal? waa ahlulislaamkii ayay ku sifaynayaan. idan intaasoo astoo aan israaciyey hal midaynu ku sheegi karnaa oo ah labada safka ay rabaan inuu guulaysto, guushiisa ay ku farxayaan, ay u hiilinayaan, ay walaalayiin, ay la socdaan, waa safka gaalada baa lagu tilmaamo. maca daalika waxay la joogaan oo ay ka tirsan yihiin waa bulshada muslimkaa. bulshada muslimkaana waa la degan yihiin, safkanna waa u sahan iyo horseed iyo taageero iyo wax walbaba u yihiin. astaan kaloo xoog laba qur-aanku uu ku sheegay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nimankan calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah haddii ilaahay sharcigiisa lasoo hadal qaado in ilaahay la raaco, laga xukum yeesho, isaga laga dambeeyo, waxyu samaa la raaco. mas'aladaasi waa ka dhabar jeedinayaan, uma dhegtaagayaan. dadkana waxay isku dayayaan inay ka celiyaan oo ka weeciyaan. waxay raalli ku yihiin mas'aladaa wixii cagsigeeda ah ayay ku faraxsan yihiin, magacay doonaan markaa ha u bixiyaan oo ah maxaa u cagsiya? cuquusha basharku waxay xeeraysay, jidaysay, ay isim ha wato. ilaahay wuxuu sharciyeeye jideeyey ma rabaan. bini aadamku caqligiisa wixii uu ka keenay uu jideeyey, ama xeer qabiil ha lagu sheego, ama xeer dowladeed lagu sheego, ama xeer United Nations ha lagu sheego, ama xeer ka hooseeya, mid ka sarreeya, mid ka dambeeya, wuxuu doonayaa ha noqdee. wixii bashar uu ururiyeyna xaggiisay u dheeraynayaan baa ilaahay leeyahy. ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay calaamad munaafiqtay. markaasaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ميانة أركين كوى الشيغانية أرنكود الزعم بالغدقي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل. كوا شيغانيا إن الروميين وحي أديك لغو سو دجيي iyo rusushii horeba wixii lagu soo dajiyay oo maxay qabanayaan? waxay rabaan baa ilaahay yidhi inay xukum ka dhigtaan taaquudka iyo warkii, iyadoo ilaahay uu faray inay baabka ka gaaloobaan. laakiin shaydaan baa lumitaan fog lumiyay baa ilaahay yidhi. maxaa u astaana markaa? waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu ila arasuul. haddii la yidhaahda baa ilaahay yidhi war u kaalaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey nebi moxamed wixii waxyiye loo keenay kaalayo raaca haddii la yidhaahdo, ilahay wuxuu yidhi ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda. waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo mas'aladaa ka jeesanayoo diidan oo ka cararaya. idan haddaad aragto bulsho ka didayso, ka fiigaysa waar ilaahay aan raacno, waa sifo ka mida sifaadka munaafaqa lagu yaqaanee rasmiga ah. waa sifo aan u baahanay markaasi inaan iska fogayno oo ah haddii ilaahay iyo rasuulkiisa lagugu yeedhay inaana diidin. mas'alo 2 3 4 5 20 50 waxay doonaysaa ha noqoto, ilaahay iyo rasuulkii haddii lagugu yeedho wixii ka yimi inaanad ku madaxadaygin oo ka jeesanin. haddaad ka jeesato waxay noqonaysaa inaad yeelatay sifo ka mid ah sifaadka nifaaqa. munaafiqiinta sifaadka uu qur-aanku ku sifeeyey waxaa ka mid ah inay yihiin qaybo ka midi duul tahana, muuqaal ahaan dadka markay is hortaagaan jidh ahaan dhisan, hadal ahaan hadal deeqsiinaya, dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan, waxay rabaan inuu islaax yahay. laakiin hadday jeestaan oo markay tagaan
bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii la isku mabda ahaa loo tago warkii ka gedisan baa la akhriyaa mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaan ee wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay fasaad bay ku gundhabaan waxbaba ma nooleeyaan idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo markayse iyaga gacantooda soo gasho dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahay wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha cala ma fii qalbi wahuwa aladdu lkhisaam dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeyahay warkiisu uu ku cajab gelinayo oo dadka caliimu lisaanka bale dad dood badan oo doodyahana aladdu lkhisaama dad dood badan oo warkiisa markuu sharxayo si fiican u soo bandhigi kara laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waidaa tawalla min alwilaaya aw min altawalla iyo alicraad kaa doontaba kake haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramayay ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan ilaahay wuxuu leeyahay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasr wallahu laa yuxibu alfasaad shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilahay yidhi ilaahayna fasaadka ma jecla waidaa qiila lahu ittaqi illah markaa dambe uu wax wado haddii la yidhaha war ilaahay ka cabso xaggaad wax ku wadaa akhadathu alcizatu bilism faxasbahu jahannama walaa bi'sa almihaad isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan wuxuu arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey ويا إلهي بوحليه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون با إلهي إليه هدي الله يراهده وردلك فسهاديننا وحيلين أنه وحن ودنابا وإصلاح حقا كان تدك الله لينيه وحكم حلوغة جدا النظام كاللغو دجيه الرموه هنا يدق نقضان ayuunbaa loo wadaaye adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayowa caafimaadka qaba wanaaggan wadna way arkaan dadka bukaan arag bay ku leeyihiin indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum almufsiduun innahum hum almufsiduun ألا وهي أدوات التنبيه با إلهي كو استعمالا دبتنا إلهي وحلي إنهم هم المفسدون يو كل يوم با إلهي لي أهل فساد كوا وح فساد يا ويجا لكن وحبواني قرني وحبواني دريمين با إلهي لي درين كارلو مي إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية من علامات النفاق إن كم تهي dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyayna du aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin sufaha maangaabiyo garaad laawayaal dabeetana ilaahay wuxuu ku leeyahay waidaa qiila lahum aaminuu kama aamana annaas haddii la yidhaahdo war dadka sida ilaahay u rumeeyeen idinna ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya qaaluu an nu'minu kama aamana asufahaa bay leeyihin ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelno dadkan maangaabyada iyo dadka wax magaratadii siday yeelaan masaasaad nala rabtaa bay leeyihin ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum sufahaa walaakin laa yaclamuun iyagaa safiiha baa ilaahay yidhi maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahy subxana wa tacaala oo goormuu maangaab garanaya dee inuu maangaab yahay daabuu maangaab yahay siduu u garan inuu maangaab yahay waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragta inay la mid yihiin waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna laakiin kooxahoodii iyo waxoodii markay u baxaan idaa khalow ilaa shayaaiihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun markuu warka dadka la hadlayo shareeco iyo diin iyo arrimo iyo warkaasuu ka warramay khayr buu ka warramay iimaan baanu qaadannu ka warramay laakiin kooxahoodii markuu u taga baa ilaahay yidhi wuxuu odhanaya war waa cayaarin maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegaye ma waxaasi dhabnaga ma aha buu leeyahy
وحيلة سياسية كمدة بولية وحبضا كماها. هذه الصفات مركا انت المامنة يعني القرآن كصفات أترى بدن بكت المامية وحكم دينيين دد حمها انكباقة وانسمها كباق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إلهي وحد الماميين دد حمها دد كفرة فساد إيا الرذيلة إيا وحل إيا خلاق حمد إيا وحاسي ونظام الحرية والله فافنية ووضعا معروف كسوا خطر ماشا وحبا كجرا وحبا كسو سعدا لليه وحي معروف يدعكت على صاري ولا الريبية وحي فسادي يقوى مباح ولا سيدينية. إلهي وحكت المامية سبحانه وتعالى إن الصفات كودا كم تهي ويقبضون markay xoolo joogto wadad hunguri badan baa ilaahay leeyahay waxa inta u badan qaataan bay rabaan marka ay bixin joogtana wadad gacmaada go inaan waxba ka bixin bay rabaan isagu waxba intuu qaataa inaan shilimo ka dhicin ay doonayaan. marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhatu. wadad markay wax bixin iyo sadaqa iyo wax bixin joogto raba in wax la siiyo idan raacistuku raaca halkaas wax ka maqlaya hadaad wax siiso waa macak waa raalli inta wax qaadanayo laakiin hadii la yiraahdo adiga maanta waa laga yara maarmay qolo ka yara dhib badan baa jirta markaas uu dudayaaba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala markaas uu carada bilaabaya. idan waa dad hunguri badan oo hanti markay meesha taalana hunguri la taagan marka aan wax jirin ama aan isaga wax loo dhiibinna ceebayn badan baa ilaahay leeyahay. lamzi waa dad ceebayn badan oo dadka ku ceebaynaya wax bixin la'aan iyo kan waa dad hadday wax bixinta iyaga waxa la yidhi yaqbiduuna aydihim gacmahaba u xidhan bastil yadi ma yaqaani gacantooda ma fidsana. idan waa min sifaati nifaaq. هذه صفات marka aan tilmaamayo waxa aan rabaa inaanan anna yeelan adna aanad yeelanin waayo waa calaamad ka mid ah calaamaatu nifaaqa. nifaaquna wuu qaybsama marna waa kii qalbiga degaya gaalnimada ahaa marna waa nifaaq camaliya. nifaaq camaligi waa kuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo aayatul munaafiqi thalath munaafaqa calaamaadka lagu gartaa waa saddex ama arbaca man kun afar ninka ku sugan buu nabi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ee afartaas ay isugu yimaadaan waa munaafiq barax tiran anbiya ismarin ninka mid ka mida laga helaana khasla min khisal nifaaq ba ku jira buu nabigu yidhi qayb ka mida qaybihii nifaaqa nifaaq camaliya culimadu marka ku fasiraan. idan marka aan ka warwarsanahay nifaaqa in leeyahay saxaabadii nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu anhum ka warwarsan macnaheedu waxa weeyaan nifaaqa camaliga inaynu ka dheeraano كعقدي أنا كفجانه مركان كور رمي صفات المنافقين ومتشهدين عد على مدسان واستيسان وحنو تشهد قف كستاء مؤمن أهل إيماني إنه يسكت ضيان وحكن كفيد مكتوبات كانوا إنه يسكت ضيان أنو يلان علامة دي إلى هاي كوا النار تهلك وهو سيجل يا إلى هايين إن هندي أنا لا جاهلين إنه يسكت ضيان إنه كفجانه سيد ردد بإله سبحانه وتعالى وحنات المامية ودول دار بدن بالليل ahdigan dambe waxa macruufa madaxda waa la dhaariya waa nidaam gaaleedka waayo muslimiintu waxba may dhaarin jirin madaxna lama dhaariyo cid kalena lama dhaariyo qofka muslimka hadii meel loo dhibo wuu haya laakiin nidaamka gaaleed baa yaqaana qofkan gacanta taagaya la dhaarinayo dhaar iyo waliya billumba waqtigan dambe la tira badiyay calaamatu nifaaq ilaahi wuxuu ku tilmaamayo wa yaxlifuuna billahi innahum la minkum wama hum minkum waliya billah waxay gunta kaga jarayaan inay idin ka mid yihiin inay danta dadka wadaan inay maslaxada ilaahina wuxuu leeyahay wama hum minkum idan kama tirsana. waxaynu tilmaamaynaa alla subxaanahu wa tacaala oo ku tilmaamaya munaafiqnimada calaamaadkii lagu yaqaanay waxaa ka mid ah inay yihiin duul madaahirtu ay la weyntay muuqaalkan sare وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم با إلهي كنت المامية موقال كودي وكو عجب قلنا وقف جعل ضدك إنه موقال في عنه ويماضه
laakiin quluubtooda iyo caqaa'idooda iyo waxay rumaysay inay aad u liitaan. munaafiqiintu waa dad marka sifaadkaasi uu qur-aanku ku tilmaamay. ama khatartooda iyada haddaan 2-3 kelmadood ka idhaahdo aan badnayn, khatar waxaa ku filan inaynu taariikhda ku hayno nebi maxamed siday u galeen calayhi salaatu wasalaam, inay isku dayeen ciidankii dhammaaye uu watay ulu ka mida inay la baxaan oo ay nebi maxamed kala hadhaan. waxaa kuugu filan siday isugu dayayeen inay saxaabada nebi maxamed madaxa isu gelayaan iyo dadka muslimiinta ah. oo maalan xadiidkii ka warramayay qisat alifk, xaaditadii ama dhacdadii ifkigu, nimankani siday markay ka soo hideen muslimiintii oo isku direen oo wax walba, yani ma ghaswatu bani mustaliq markii la soo noqday waxaa dhacay 2 nin oo dhallinyaro oo saxaaba ah baa fara ka cayaaray, mid baa mid dabada dharbaaxa ama haraati kaga dhuftay, kii kala cadhooday. dabeetana waa kuwii qayshaday yaalal ansaar iyo yaalal muhaajiriin ku qayshaday. waa kii mowqifkaa ka faa'iidaystay ibnu ubay, yaalaha samin kalbak yaakulak, ama ilaahay uu ku tilmaamay inuu lahaa haddii magaalada lagu noqdo waa dadku biyeeyo burba u kala baxaya, waa in la kala baxaa. dabeetana nebi moxamed uu leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo dadkii dejinaya, dacuuha fa innaha muntina, war qabiyeeladan iyo waxaan isugu yeedhaysaan. bale makrigoodu wuxuu gaadhi karaa xad dad waaweyn oo saxaaba uu ka qarsoomi karo. oo maalan madiine iyadoo la joogo ayay nebi maxamed gurigiisii been ka sheegeen oo ay yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii waxaa ka haystay nin kaloo muslimiinta ka mida. warkaasaa la faafiyey. ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la rabay atarbiya bilaxdaad, muslimiinta dhacdooyin dhabaa lagu rabaynayay. bil baan waxyi ka soo deginoo qadiyadda nebi maxamed looga warramayn calayhi salaatu wasalaam. ou nebi maxamed tashiga badinayay oo uu dadka wax weydiinayay, war balse idin la tahay see waxu jiraan. cali la tashaday, usaamo la tashaday, bariire wax weydiiyey, uu arrinka ka waraysanayo. xad bay nebiga ka gaadhay intuu masaajidka istaagay inuu yidhaahdo yaa macshara almuslimiin. membarka intuu nebigu fuulay oo ilaahay ammaanay ayuu saxaabadiisii la hadlaya, wuxuu leey war muslimiinay, man yacdirunii min rajulin qad balaganii canhu aadaahu fii ahli. war yaa iga cudurdaray, yaa iga qabanaya buu nebi maxamed leeyahay nin dhibtiisu ay gurigaygii gaadhay. nebi maxamed baa ka sheeganaya oo mimbarka fuushan oo la hadlaya saxaabadiisiiyo wuxuu leeyahay waar nin dhibtiisu gurigaygii gaadhay yaa iga qabanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baan ku dhaartay reerkayga inaanan wax khayra mooyaane wax kale ku ogayn. ninka ay wax ka sheegayaanna khayr mooyaane wax kalena kuma ogi, gurigaygana weligii ma gelin isagoo aniga ila socda mooyaane, ayaa iga qabanaya. saxaabi baa istaagay, sacad ibnu mucaad la yidhahda, wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, hadduu reerkayga yahayna, reer buu madax u yahay markaa, hadduu reerkayga yahayna anigaa wax ka qabanaya, hadduu reerka kale yahayna nafar waa dilaynaaye, hadduu waxaad tidhaahdaa shaqaha laga qabta annaga ka qabanayne. saxaabi kalaabaa tii qabyaalad ahayd intay ku kartay ayuu istaagayo wuxuu idhi wallaahi waa been tahay, waxaad sidaa u leedahay waxaad ogaatay inaanu reerkiinna ka mid ahay ninka laga cabanaya, mana dili kartid waxna kama qaban kartid. dabeetana saxaabi labaad baa istaagay, usayd ibnu xudayr baa istaagoo wuxuu yidhi wallaahi waa beentahay, waa dilaynaa shaqana waa ka qabanaynaa, wa innaka munaafiqun tujaadilu cani lmunaafiqiin, adna munaafiq kalaa tahay oo munaafiqiinta u doodaya. dabeetana waaba la isku oogsaday. bal qiyaas nebi maxamed oo mimbar fuushanoo ninka cabanaya oo saxaabadii inay isku oogsatay waa shaqadii munaafiqu qabtay. dadaan nebi maxamed la joogin markaasay u galayaan waa inay casarka isweeraraan, maadaama aanay nebina haysanin cid xakiim oo dadkan kala qaban kartaana iskaba yar tahay. hadduu harag shabeelkiisaasi gashado in yaroo fudud buu dhagaa isugu wada gelin karaa. sidaa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhay qadiyadii kale intuu joojiyaba inuu dadka aamusiiyo oo yidhaahdo war bal aamusa 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 oo saxaabada kala dejiyo. arrinku ninkii laga cabanayaba inuu dhaafo ay noqoto in saxaabadii nebi maxamed la kala badbaadiyo oo lagu kala badbaadiyo munaafaqa kani shaarkan uu gashaday odaynimo iyo sidan uu dhaqmay iyo mashkiladatan. taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa
munaafaqu khatarta uu ku leeyahay bulshada muslimka ah iyo waxa uu geysan karaa inta ay leeg tahay ayay tilmaamaysaa. waxaan se isweydiinaynaa leenahay sifaadkaasi munaafiqiinta ee qur-aanku wax badan ka sheegaya midhadh yarna aan ka soo qaatay haddaynu inagu nafaheenna kaba khallisno si ay dhacayso kollayba qaar wataa inay joogaan sidee loola dhaqmayaa? dadka badh bay u muuqataa ciddii laga cawdaba in hal bamoo yar madax lagaga dhufto aakhiraha qabtee, laakiin waxaynu u baahanay inaynu dib ugu noqonno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bulshada kuwaasi ku jiraan buu waday horta marka koowaad. bulshada qabaa'ilka lee reeraha lee noocaasiya, bulshadaasi munaafiqiinta wadatay caynkaasiya, bulsho arkaan ahluliimaan oo waaweynina ay ku jiraan iyo cumar iyo abubakar iyo rag la mid ay ku jiraan. siduu ula dhaqmay baa isweydiin leh nebigu calayhi salaatu wasalaam. haddaynu isla qisadan dib ugu noqonno ghaswatu bani lmustaliq aw ilmuraysiic. muraysiicna waa ceelkii laga cabbayey, mustaliqna waa qabiilka la magaciisii ama reerka qaswada loogu magac daray ama ceelkoodii ha loogu magac daree. dagaalkaasi meeshaas ka dhacay markii laga soo noqday ee labada saxaabi ee dhallinyarada ahi farakalooleen ee dabeetana isku xanaaqeen ee wararkii badnaa ninkan munaafiqi uu ku hadlay, cumar baa adkaysan waayoo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dacnii yaa rasuula allahi adrib cunaqa hada almunaafiq. ilaahay rasuulkiisiiyow igu sii daa munaafaqa kanaan shaqo ka qabtee, madaxa kan anugu aan ka jaree igu sii daa. waxa isweydiinta le inaynu garanno nebigu muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam. nebigu qadiyadda tan siduu u xalaalay waa mushkilo taagan, laakiin ma odhanin nebigu ninkani munaafaq maaha, ma odhanin in dil ma mutaysto oo ma dilayno, laakiin ufuq intan ka dheer buu nebigu maxamed ka warramay calayhi salaatu wasalaam. aragti intan ka ballaadhan qofku isagoo dembaaba isagoo dil xaq muta ayaa waxyaabo badan iyadoo la eegaya qaab kale loo manage garayn karaa. qiyaadadu ama dadka hoggaanka haya waa inay noqdaan dad caqli badan oo aan wadciga midhmidh u qiyaasaynin ama u eegaynin bulshada iyo waxa ka ratibmaya sida wax u dhici karaan arki kara. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dachu laa yataxadath annaas ana muxamadan yaqtul asxaaba. war iska daa buu ku yidhi nebigu, dhaaf ninka kan, ummadda kale isugu sheekayn maysa buu nebigu yidhi. nebi muxamed inta la socotuu laayaa la odhan maaye. nebi moxamed muxuu ilaalinayay? ninkani waa munaafaq, dhib buu muslimka ku hayaa, laakiin haddana wuxuu nebigu ilaalinaya calayhi salaatu wasalaam sumcadda ah dadka muslimiinta ama nebi moxamed inta la socota inuu yidhaahdo wuu xujoobo madaxa uu ka googooyo inay dadka kale gaadho. waayo dadka kale u ta'wiilin maayaan, u odhan maayaan siduu imaamu nawowi fi saxiixi muslim xadiidka markuu sharxay u tilmaamayo wuxuu leeyahy nebigu xaq buu lahaa inuu dile, laakiin dee gaaladu u ta'wiilin mayso o odhan mayso ninkani dhib buu geystay kan buu geystay. waxay uma odhanayaan kuwii la socdayba madhiye maxaa laga doonayaa? maxaa meesha ka muuqda marka? waxaa ka muuqda inaynu baranno ninkani dil wuu xaq mutay, wuu dhib badnaa, mushkiladiisu waa taa gaadhsiisnayd inuu haddana markii madiine la tagay qisadii hore aan ka warramayuu geystay. labada qiso waxa horreeyey tanuu nebigu sii daynayo. isagoo shalayto waxaa soo sameeyey ayuu haddana markii madiine la tegey xaadisatul ifki iyo wixii uu abuuray ee keentay in saxaabadii dhagaas la gasho. idan dilkiisu wuxuu keensan lahaaba muuqanaysa inta shush badan uu soo baxo oo dad badan ay garan waayaan sababta wax loo dilay oo warar badan la sheego oo qabaa'il badan ay madaxa isla geli karaan. idan nebigu calayhi salaatu wasalaam meel durugsan buu wax ka arkay. qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa maalan 3 aayadood oo qur-aanka ka mid ah waxay sheegayaan munaafiqiinta iyo sida loola dhaqmayo. kow ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiin واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إلهي وحلي النبي الله جاهد الكفار والمنافقين قالوا يا منافقين بل جهات بل يري
لكن وين نسويدنا السيرة دي عملي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدو قلبه ولا جهاتمي لما هي وح منافق نمل له دلي تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام انت انو اخرني كما هي انه وح انت الله سوق بطي نفاق له دلي بل وح لا عبد الله بن ابي حادثة الافك مركو دغاي صحابه دي iyagu saxaaba ahaa iyo iimaanku dhabta ka ahaa laakiin uu ninkani hadateeliye gafka galay waa la jeedalay oo iyaga xadul qadfi baa lagu qaaday laakiin hatta culimada taariikh ma sugayaan in Abdullah ibn Ubay hatta jeedalkaana lagu ma dhufanin mistahiyo yani ragii la midka ahaa waa la jeedalay laakiin Abdullah ibn Ubay hatta jeedalkaasi kuma dhicin waxa la tilmaamaya markaa sidoo la dhaqmay wuxuu la dhaqmay been leenay sidaas uu leeyay da'hu la yatahaddath an-nas anna muhammadan yaqtul ashaba ilaahay quraanka wuxuu ku leeyay markii laga waramay munaafiqiin ayaa ilaahay wuxuu leeyay humul adu fahdharhum marka koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay hum al-adu khabariyo mubtadi baa loo kala horeysiyo culamaa al-balagha waxay sheegi jireen wixii xagga dambe mari jiray hadii xagga hore la keeno qisadka xagga hore loo mariyo waxa kamida in wax lagu qasrinayo waxa lagu koobayo in iyagi kaanama la leeyahay iyagoo qurunba ah culba waa iyaga ba ilaahayna yiri kama murmayno marka munaafiqiin cadawiyay ilaahay baa wuxuu leeyahay humul adu culba waa iyaga ba la leeyahay subhanahu wa ta'ala galba culka ka weyni ee ka soo ka maray ee ka khatarsan ee naarta halka hooseysa galaysa waa iyaga ba ilaahay yiri garanay maxaynu ku sameeynaa marka ilaahay wuxuu yiri fahdharhum ka digtoonaada waa inaad nolosha manage gareyn kartaa waa inaad aqliyada isticmaali kartaa inaad isna hayn karto dadka muslimiinta aanu ka fitnayn karin dibtu gaalada kaaga geysanaya warku ka geenaya waxana aad manage gareyn karto waa inaad contain gareyn kartaa al-ihtiwa هاي لما ضيع هذا وين لقول رقم كرا سياسة الاحتواء منافقين تو جهات كي نبي محمد راعي يدولوجين ومنافقين وكوي غزوة تبوك انت نبي الراعان اخرين يي وحان الاخرين الهي الرسول كي سيا وكوتشيس سيا كودل ديل يبي السعوديه وهي صفات كالنفاق وحكم ده وحان كفتن قلين بي كفتن قلان كفتن قليان كفتن ككومتشيران إلهي الرسول كيسيا كتاب القرآن يدين توحلو كفتا ما بمها بابك كفتا كالله يدهدا ما قلان لكن منافقه وحكا دقا وحلسكا كفتا ما لغو عياره إلهي با وحلي يسوغو يغا كورميا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وحي أورانا إيان haddii la weydiiyo waa jidkaan isku dhaafayno waa dheeldheel iyo kaftan iyo bay naga ahayd war ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesjeesayseen baa ilaahay leeyahay laa tactadiru waxbaha cudur daaranina baa leeyahay qad kafartum waa gaalowdeen haddana lama dilin waxna looma geysanin ciidankii muslimiinta aanay la socdeen ma yahay dad kaa tegaya maaha dad baaba la firdhiyaayo kaa hadha oo aad tidhaahdaa warina kala kaxeeya ما هريانو النبي محمد بي حتى دقالكو كسعودي دح سعودان دن كلنا مليني وحفسهاديان بي وسعودان حدنا يقو عين كاو سعودو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودي كريو هين كري إذن بلشد قيادات كهجامية مسلم كي وحلو باهي دي مساجد كسفل أول كوقر الله ما وذا المنافقين تابع سفل أول كجشمر كيدونتو سدرادات قفك وين النقون كرا مقيادة الإسلامية وين النقون كرتا ضد هين كرا برشد دمانتود سدرادات با إلهي وحلي سبحانه وتعالى هم العدو با إلهي علواء يجا لكن سأل الله لا نغمية فحذرهم قاتلهم الله أن يفكون با إلهي كالدكتورون سكا إلالي با إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحلي سبحانه وتعالى أيضا صدحاتك كورما يسقابك الله لا نغمية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
إلهي وحليه سبحانه وتعالى ودول هدي الله ويرو إلهي يا رسول كيسا يا دين تيسا وركالا يراعى هدي الله يراهدو واحد أركي سبا إلهي ليه وكم ضحضيقة يوكعرر يوكسيجي سنية كوا دين تكعرر يكسيجي سنية لما أوران مضحا كقر يا إلهي وحليه فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك هدي بلايا هلا الشيخ بل كور مركي بلايا كل عضو إيه هدنا أنت كوي ما دان أورانا يان وحي أن ودنونا نجو حاجاتيهم بين نجاهي أرنكم باميشا نولا يكون عضيه وحي نجاهي دون إحسانا وتوفيقا إلهي وحده سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وقوى إلهي أجي هي وحق قلبك كجتره نوع أيهين إلهي وأجي بالله سبحانه وتعالى لكن ما حيكون سميه فأعرض عنهم بالله اسكجتشيسو وعظهم واني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نفه واحد كتر هذا بالله سبحانه وتعالى واحد وشيكتا ور ميل فقارك ور بليغ واي وحقوق هذا كرانو التلمام waxaan leenahay munaafiqiinta qaar ka mid ah ilaahay intuu nabi maxamed u waxyooday loo sheegay inuu hebel munaafiqi oo hebel munaafiqi oo hebel munaafiqi oo hebel munaafiqi oo intuu saxaabada ka mid ah u yeeray isna uu sheegay xudayfa ibn al-yaman صاحب سر رسول الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام منافقين ما لغوه بابو مقعيده ودو شيء هبلين منافقية هبلين منافقية هبلين منافقية لما الله إنن وحكى لنا اللي هم جيسب بالشدة كم ده هاي وحماشة تعالى مركا وحيتها هي وحلوبة هي منافقه وبلايا كل النار وقال كل تشوغه وكادبتيسو اي غارسيسنتي انو سعد بن معاذ سعد بن عباده انتو اسكهور كانوا يا اسيد بن حضير وركو كغادو انك منافق تجادل عن المنافقين ان يجي اسكو يدادان ور منافق باطي منافقين تو دوديا وكغاداي نبي محمد عليه الصلاه والسلام انو غوريغيسي انتو تشوش كفره بلدان وركاسي وفافو لكن waxa la ina baray quraan badan baa ilaahay ka soo dajiyay xaadithada waxa la ina baray wararka inaynan faafin shaayaadka inaynan dhageysanin qofka muslimiintii waxaas inaanu ka shaqeynin warku cidda ku shaqale in la geeyo xataa haday war noqoto iyo wax ka qabadkeed inaan suuqa lagaga waramin ciddii wax ka qaban karaysay ee ku shaqalahayd in loo geeyo waxa la ina barayaa جماعة المسلمين تيدتك مسلمين تاين أنو منافقين تكلا كحينين سيدة درادت هي حديث كشيخين كورين أيان بخاري يا مسلم يا ترمذي يا النسائي يا أحمد يا غير كود بس صارين زيد بن ثابت باو حليه مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحد قبطي وكسر نغضي أي منافقين تي كوحدن وصحابة دي دتكي نبي قال لك قال يا كحيستين من الله صار نغضي شبكي هذانا مسلمين تكون دعي goobtu waa goob caynkeeya waqti qiyaas ciidankii saddex qaybood oo qayb bay la tageen hal la tagaana hadaad soo guulaysato waxaad oran lahayd waxba ma aha waxay geysteen guul military oo cadina may dhicin oo muslimiintii 70 baa laga dilay oo nabiga adeerkii baa la dilay asadkii saxaabada la dilay Hamza ibn Abdul Muttalib oo bal waa la googooyay oo tamthiil baa lagu sameeyay oo nabi maxamed baa god ku dhacay alayhi salaatu wasalaam oo nabar ku dhaceen oo xad baa la gaarsiiyay oo nabigu salaadii sare jooga ku tukan kari waayo xad bay gaadhay in la yiri nabigiiba wuu dhintay oo saxaabada iska fadfadhiisato xad bay gaadhay ragii Uhud ka dagaalamayay bad markii la jabay oradkii ay Madiina ku galeen la jabay oo oradkii dadkii meesha ka cararay qaar kamid ay Madiina galeen oo qaar ay iska fadfadhiisteen ciidan sidaa u jabay oo dhibta inta leegi soo gaadhay nimankii 300 ninka ka haystay markii Madiina lagu soo noqday way saxaabadii muranto waxay dhaayeen nimanka waa leenaynaa nimanka waan shaqo laga qabtaa waa in la laayaa وحليه زيد بن ثابت وحسود آيات كان قرآن إلهي سبحانه وتعالى كورميه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ورمحايد كل عيبة إلهي لي منافقين تلبكوا وحاد ونغاها كمر من منك منافق ومنافق لكن لما أرنني منك الله إلهي بك ورمي صحابتي كم مرنتي وروحا سو جبن nimankii inoo geystay maxaynu ku sameeynaa
ragga badhay leeyihiin markaa fi'a ay leedahay naqtuluhum firqana ay leedahay laa ilaahayna qur-aanku ka soo dejiyey sidaa tan buu uga warramay waxaan uga jeedaa munaafiqu waa duul khatar ah waa duulkaasi naarta ugu hooseeya waa duul bulshada muslimkaa la nool laakiin waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta ahayna kow sifaadka nifaaqa inaynu fahamno si aynu inagu nafteenna uga tahiri karno laba inaynu sifaadka nifaaqa fahamno ciday ku ururto si aynu u garan karno calaamaadkii nifaaqu inay qofka kan ku urureen waayo qofna qalbigiisa waxa ku jira ilaahay unbaa oga la garan maayo saddex waxaynu u baahanay inaynu baranno sidaynu ula dhaqmayno aynu u manage garaynayno dadka ummadda ama hoggaanu haya ama a'imma u ah ama horseed u ah ama dhaqaya inaanay noqonin caqliyo fudud oo ah inuun wixii gaaloobaba laga takhalluso ama wixii dhib gaystaba dhegta dhiigga loo daro inaanu noqonin qadaayaadka islaamiga ee waaweynay inay u baahan yihiin in si xeel dheer oo fog ay u arkaan dadkay gacantooda wax ku jiraan oo ay gartaan markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhibta intaa leeg iyagoo u geystay oo dagaaladaa dhan sababay inay jabaan muslimiin badani ama dhib badan ay ku dhacdo oo guryihii nebiga waxaa ka geystay oo saxaabadii sidaa isugu diray oo duulkaasiyo haddana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo cafwi iyo tasaamux iyo dulqaad iyo dulqaad qabinimo ku jirta maaha kaan ka warramayaa yacni maaha dulqaad qabiya oo aan ogeyn waxay geysanayaan ee waa dulqaad garanaya faxdarhumta waa dulqaad garanaya inaad ummadda munaafiq madaxa ka saarin waayo ilaahay baa kuu sheegay yuhliku alxarta wannasl waa dulqaad garanaya haddana inaan la dilina bulshada lagu dhex wadi karo idan waa inuu garan karaa dadka hoggaanka u haya ama muslimka ama hoggaaminaya inay bulshada islaamiga ama u nisbo sheegtee magacaasi huwaday inay intay dhiiggooda iska ilaalin karaan iska ilaaliyaan inay wadi karaan oo dadka kan iyagoo munaafiqiina iyagoo juhala ah iyagoo ducafaa inay wadi karaan dariskaygu markaa waxaan jeclay inaan iska soo koobo aanan waxba badinin sifaad badan baa qur-aanka warramay qur-aan aad u tiro badanna oo de suwar dhan oo qur-aana markaad akhrido baqara markaad akhrido aali cimraan iyo ghaswatu uxud waxa laga sheegaya markaad akhrido tabuuk iyo wixii ka dhacay iyo suuratu tawba alfaadixa iyo markaad akhrido suuratu lmunaafiqiin iyo waxa alla kaga warramaya markaad akhrido suuratu laxzaab iyo ghaswatu axzaab iyo wixii ka dhacay reer banulmustalaq iyo wixii ka dhacay iyo qisadooda markaad akhrido ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu kaga warramayo reer banu qurayda iyo suurat alxashr iyo waxa laga warramayo iyo reer banu nadiir iyo suurat alxashr alam tara ila aladiina naafaquu iyo aayaadka la mida yacni qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramaya waxaasoo qur-aana waxa loogu warramayaa in innaga wax layna baro oo layna baro calaamaadka munaafiqnimada inaynu baranno iska ilaalino oo nafina aaminka ma aha xandala markuu yidhi abibakar uu ka soo horbaxay muxuu yidhi naafaqa xandala حنظلة الأسود ابن الأسود مركو يمي أبي بكر وحيدي نافق حنظلة أبي بكر مركو ويديه ويقول محاكو قد عي وحيدي دي نبي مركان لو شوقنا عين كاسان مركان عروتي يراي حولاي وحكانون مادنا وحي بدنا يا نوركيني جنة دي النار تينا نوركينا بعد مودي سيبيو لي مركان النبي قال فديني هدونون حوله يراركي يدمركي وحبانكم مشغوله أبي بكر أرمى سعيد والبواه استانين ودي بيقول النبي ينوجي يعني أبي بكر بايس إلى لنا يربه inuu isdhowro bale ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya dadkuba inay laba yihiin min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxba waminhum man yatadir wama badaluu tabdiila liyajziya allahu الصaadiqiina bisidqihim wayucadiba almunaafiqiina in shaaa wayatuuba calayhim in allaha kana gafuura raxiima dadkaba ilaahay wuxuu u qaybinaya saadiqana waxa lagu sheegay mid jidkii ku dhintay iyo mid sugaya inuu ku dhinto kooxda kalena waxa lagu sheegay inay yihiin munaafiqiin idan nifaaq nin weyn iyo nin yarba inaynu ku talagalno sifaadkiisa inaynu iska daahir yeeli karno hadday yihiin sifaadka qalbiga ah
iyo haddayin sifaadka camaliga ee axaadiis tiro badan oo nebi maxamed ka soo aroortay ay sheegayso calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dadaallo waxaynu iskaga daahir yeeli lahayn oo maalan waxaa ka mid ah tusaale qura haddaan idin siiyo xadiidka sheekh alalbani silsilada uu ku soo aroorinaya imaam tirmidina uu soo saaray ee uu xasan ku tilmaamayo sheekhu wuxuu leeyahy man salla lillahi anas ibnu malik baa wuxuu leeyahy man salla lillahi 40 yawman fi jamaaca yudrika atakbiirata aluula ninka 40 maalmood jamaaco ku tukada laakiin aan ragcadaha dambe soo gaadhin takbiiratul ihraamka imaamka la xidha inagoo meelahan joognun baa la qiimaa waxaan waa ka gaadhaynaa jamace waxa roon inaad ka gaadho takbiirta hore imaamka allahu akbarta inaad la xidhato oo la xidha buu nebi maxamed leeyahay imaamka takbiirada hore la xidha kutiba lahu baraa'ataan buu nebigu yidhi laba shahaado baa la siiyaa laba certificate labada shahaado waa maxay waa baraa'atun min annaar iyo baraa'atun min annifaaq baraa'atun min annaar munaafiq waxa la yidhi fi darki lasfal buu gelaya laakiin waxa la leeyahay kan waxa la siinaya baraa'a uu kaga dheeraado nifaaqa naarta uu kaga dheeraado iyo certificate kaloo caddaynaya inaanu munaafiq ahayn waayo munaafiqiinta waa tii lagu tilmaamay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila munaafiqiinta waxaa lagu tilmaamay salaada iyo jamca xataa hadday yimaadaan inay noociyaadka ay yihiin waxaa lagu tilmaamay hadday laf hilibla ku ogaan lahayn masaajidka maxay inay ciidamo ka maqnaateen haddii la odhan lahaa masaajidka sheekh maxamed baa markuu dadka tukiyo waxoogaa u qaybinaya saflawalkaa dadku wada joogi lahaa waxaa ilaahay inoo tilmaamaya inay salaada jamacata subax iyo tacisho iyo kuwa casarka iyo salaadahaasi inay kuba adag yihiin laakiin waxaa laynoo tilmaamay ninka 40 maalmood aan jamacaba habsaaminee maalin kasta takbiirada hore jooga inuu laba certificate helayo waxaan uga jeedaa markaa dariskani ma aha daris aan ku koobi karo sifaadka munaafiqiinta ee qur-aanka iyo sunnadu ay ka warrantay laakiin waa hogatus inaan idiin tilmaamo qur-aanku inuu halkaa ka taagan yahay iyo xadiidka nebigu sifaadka munaafiqa aynu u baahanay inaynu iska ilaalino kaasi waa kow ka labaad ee aan rabo inaan tilmaamana wuxuu yahay inaynu garanno khatarta uu leeyahay munaafiqu gaalka uu ka khatar badan yahay ka saddexaad aan rabo inaan tilmaamana inuu yahay inaynu garanno cawaatifta iyo uun cadho aynu islaam dad ka soo horjeeda u cadhaysanay inaanayna qaadine inaynu garan karno ummad haddiiba aad hormood ka noqoto sidaad u haanan karayso ama si aad u maamuli karayso iyo munaafiq iyo hayru munaafiqaba inaad wadi karto oo bulshada muslimiinta aad ka dhex ilaalin karta dacaayaadkan iyo dhibtan iyo waxa kan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo nifaaqana inaga dheereeyo sharkoodana inaga ilaaliyo iyaga iyo gaalba ilaahay sharkooda inuu inaga dhowro inana kuwa saadiqiinta ku tilmaamay safka ka soo horjeeda in alla subxaanahu wa tacaala inoogu daro wallahu aclam billahi tawfiiq assalaamu calaykum